Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam dhamaan walaalahay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan oo markale walaashin xabsa shirka kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta aad ayaan soo dhaweynaya dhamaan walaalaha gadaal nooga soo biiray waa mahadsan yihiin kuwa hore noola jooga waa mahadsan yihiin waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada channelkiina waaye video haddaad soo geliya like taa ka ilaabina subscribe taa ka ilaabina insha allah asxaabtiina kale u sheer gareeya maanta waxaa rabaa inaan idin la wadaago calaamadaha lagu garan karo gabadha markay uur qaado uurkaasna uu yahay uur mataane ma jiraan calaamado ka duwan calaamado kale yacni calaamadaha caadiga oo lagu yaqaano uurka caadiga ama halka cunug marka waxaan ka jawaabi doonaa su'aalo dhowr calaamadaha maxay yihiin adigoo computer saaran ama dhakhtar tagin ma ogaan kartaa inaa mataane aasido iyo maxaa keeno in oo maxaa lahaay uur mataanaha ee gabadha ay yeelato horta wax walba qadar ilaahay waaye qof walbo maxaa lahaay awlaadu haysto ilaahay baariha oga dhigo intaan haysanna ilaahay kuwa saalixiina ha siiyo awlaada nimco waa alxamdulillaah marka ilaahay hanoo barakeeyo intaan haysanna ilaaha siiyo marka u gudagalno barnaamijkeena muxuu yahaa calaamadaha lagu garto uurka mataanaha marka koowaad maxaa lahaayay mataanaha maxaa yacni keeno hooyada inay uur mataana ay yeelato waxaa keena dhowr qodob oo ay ka mid tahay geneticska qofka ama qofkan maxaa la hidisidihiisa ama familigiisa camal haddii hooyada ama ayeeyada ee mataana dhashay waxaa laga yaabaa inaa mataana adigana aad likely u tahay ama aad nasiib u yeelato inaad dhasho qofka inuu daawooyin fertility treatment uu isticmaalo oo daawooyinka oo qofka fertilitygiisa ziyaadinayo inuu isticmaalo iyo maxaa la dhahayay iyo qadar ilaahay inuu qofkan ilaahay iskaga hibeeyey ma fahantay marka twin pregnancy-gana wax oo markasta dhaca maahan kunkii uurbo waxaa laga yaabaa 30 ka mid inuu mataano ay noqdaan yacni kunkaas uur 30 ka mid inay mataano noqdaan marka waa wax reer oo qofkii helan markaas uu ku farxo hadduu ilaahay u badbaadiyo marka maxay yihiin calaamadaha uurkaas lagu garan karo waxaa waaye inaad dareentid ziyaado walac ziyaado hooyooyinka badanaa markay uur yeeshtaan waxaa trimesterka ugu horeeyo ama 3 bilood ugu horeyso ee dareemaan walac aad u daran inkastoo dadka qaar aysan wax walacaba aysan arkin oo ilaahay oo u fududeeyo oo cuntadooda iska cunaan wax ay ku dhibaatoodaan aysan arkin hooyooyinka qaarna waxay dareemaan walac zaa'id sida inay cuntada ka go'aan matag aad u tiro badan lalabo inay nacaan waxyaabaha carfaayo iyo waxyaabaha uraayo adi wax walbo sanka laga urin karo carf ama ur wixii ahaadaba inay hooyada ay dhibsato inay cunto xumo ku dhacdo ay wax cuni weyso waxyaaba badanaa la socdo hooyanimo maaha wax sahlan ilaahay ha fududeeyo marka waxaa kaloo ka mid hooyada calaamadaha oo ay ku garan karto ama ay ka qiyaas qaadan karto inay mataano sido inay yacni naaseeda ay aad u xanuunaan maxaa lahayay yacni ay ka dareento damqasho zaa'id inuu culeyskeeda uu ziyaado miisaankeeda uu ziyaado in appetite-keeda oo furmo ay cuntada aad u cunto like baahi badan oo qofka uu dareemo waxaa kaloo jiro in hooyada hormoonkeeda uurka hormone pregnancy oo HCG la dhahayo jiro hormoonkaas inuu aad ziyaado u yahay qofka markuu uu iskaga shakiyo inuu uur leeyahay markuu saas baaritaanka u sameeyo pregnancy testiga guriga lagu sameeyo hadduu qaado isla markii inay calaamadaha fuul soo noqdaan oo waxay noqon kartaa inuu hooyadan twin pregnancy leedahay maxaa la dhahayay laakiin for sure waxyaabahan calaamado iska caadi oo laga qiyaas qaadanayo waaye laakiin waxa kaliya dhabta oo xaqiiqada lagu ogaan karo inaad run aad mataano sidid waxa waaye in oo computer ultrasound-ga uur ku jirta hooyada la saaro kabacdi dhakhtarka uu confirm gareeyo oo dhaho ama hal aa wadaa ama 2 cunug aa wadaa xaqiiqada saas ku ogaan kartaa ma fahanteen marka yacni qof walba qiyaas iskaga qaadataa oo waxay dhahdaa aniga walacayga sanadkan caadi ma ahan ama zaa'id u cayilay yacni uurkan uurarkii hore wuu ka duwan yahay yacni inaad iska shakisid ma fahantay badanaa hooyooyinka mataanaha qaado way iska shakiyaan oo haddaa tahay hooyo hal cunug hore usoo dhashay haddii oo kan ku xigo oo mataano uu ku noqdo wuu ka duwanaanayaa uurkii ka horeeyay oo waxaad dareemaysaa calaamado ka duwan calaamadihii hore hooyada inay kaadideeda aad u badato oo because culeys uterus ka saaran maadaama hal cunug iyo 2 cunug isku mid aysan ahayn
oo culeys ay ka dareento bladderkeeda ama kaadi heysteeda. Marka maxaa la dhahayay hooyada waxaa kaleeto jirto inay dareento daal aad u fara badan. Hooyada mataanaha uurka sido aad ay daal u dareentaa, inkastoo uurka kaleeto singletonka ama halka cunug lagu wada naftarkiisa daal uu jiro, laakiin kan waa ka daal badan tahay, ma fahanteen? So marka inaad iska dareento calooshaada inay ka weyn tahay normalka, inaad ka weyn tahay oo 3 bilo ugu horeysaba aad ku dareentid. For example hadda aniga alxamdulillah ilaahay mataana ayuu i siiyey oo 2 gabar ah. Marka uurkooda aan yeeshtay inta ugu horeysay maana ogeyn oo testiga markaa qaado caadi 3 bil ugu horeysay adiga marka ii dhamaaneysay waxaan dareemay inaa xoogaa inaa cayilayo camal caloosheeda inay ka weyn tahay. Inta hore maxaa leeyahay uurka 3 bil lee la marooyaay see camal caloosheeda inaa 5 bil marooyo camal waaye, maxaa iga qaldan cuntada iska badiyaa u maleynaa waa iskaga qosli jiray. Gabadha saaxiibanaha mar walba waxaa ku dhihi jiray walaali macaani caloosheeda aad ay u weyn tahay, ani waxaa macquul maba ahane anoo la yaaban oo caloosheeda inay aad u weyn tahay. Markii aan computerka saaray ayaan xaqiiqsaday oo mataano ay yihiin. Inta ka horeysay just waa yaabanaay laakiin wax oo dhab ama maskaxdeeda xataa ma kusoo dhicin inaa mataano sido, ma fahanteen? So marka alxamdulillah qof walbo jecelna mataano ilaah ku irsaaqo, kuwa baariyaale oo wanaagsan oo adduun iyo aakhiraba wax ku anfaco. Marka calaamadahaas waa calaamada aad iskaga qiyaas qaadan kartid, laakiin si sax ah waa inaa computer aad tagtid aad ku ogaatid. Maxaa la dhahayay marka hooyada haddii ay aragto inay cuntada aad u cuneyso ama inay maxaa la miisaankeeda aad u kordhayo ama inay dareento daal fara badan oo ay iskaga shakiso caloosheeda sida normalka ahayn ama dhaqdhaqaaqa marka cunuga dhaqaaqa oo bilaabo dhaqaaqa uu zaid oo yahay 2 dhinac ay ka dhaqaaqaan ilmaha mataanaha ah 2 dhinac hadaa dhaqaaqa aad ka dareentid ama dhaqaaqa si waqti dhaqso aad dareentid maxaa la dhahayay waxaa laga qiyaas qaadanaya markaas hooyadaas inay mataano wado. Hormoonkan oo uurkana ziyaado waaye markii oo hooyada ay mataano ay sido. Marka hormoonkaas asigana waxaa la ogaan karaa only markii la baaro inuu zaid ziyaado u yahay. Laakiin markii pregnancy testiga aad qaadanaysid haddii oo mataano aad sididne isla markiiba adii 2 xariiq way buuxsantaa. Badanaa markii halka cunug la wado xariiqada midna full waaye midna biyo waaye, laakiin hooyada mataanaha sido markay uurka testiga caadiga iskaga baarayso ayada guriga ay ku qaadato 2 xariiqaba full ayay noqdaan, ma fahanteen? So marka laakiin sida saxda ah waa inaad dhakhtar tagtid oo la tashatid oo aad soo ogaatid. Marka mataanahana way kala duwan yihiin oo 2 nooc waaye badanaa. Markii oo aad ogaatid inaa ilmo mataano aad sidid badanaa waxaa kugu soo dhaco ilmo noocee waaye. Dadka badanaa waxay u qiyaas qaataan mataanaha inay isku mid yihiin ama isku eg yihiin oo yacni la kala aqoonin, laakiin mataanaha 2 nooc waaye. Qaarna waxaa la dhahaa fraternal kuwana waxaa waaye identical. Identical-ku waa markii hal ukun oo bacrimisantay 2 qayb ay noqoto ilmahaas waa isku DNA-gooda isku mid waaye. Markay soo baxaan hadhow ma la kala garanayo oo aad ayay iskugu eg yihiin. Markastana waa gabar iyo gabar ma wiil iyo wiil yacni isku mid waaye genderkooda ilmaha identical-ka ah. Ilmaha fraternal-kana waa 2 mataano oo 2 ukun oo kala gooni ah iyo 2 sperm oo gooni ah ka samaysmeen. Waa 2 shakhsi laakiin oo uurka hooyada qaybsanooyo 2 cunug oo kala duwan isku shaqo ahayn isku DNA ahayn waaye. Marka maxaa la dhahayay waxayna noqon karaan gabar iyo gabar, gabar iyo wiil, wiil iyo wiil intaba way noqon karaan laakiin way kala duwanaanayaan shakalkooda ma isku ekaanayo, ma fahanteen? So marka 2daas nooc ay u kala qaybsanaan badanaa twinska oo 2 nooc ay yihiin. Identical-kana waxay share garayaan hal placenta ay share garayaan. Fraternal-kana mid walba placentadiisu leeyahay. Identical-ka naftarkiisa waxay sii kala yihiin kuwo hal biyo iskula jiro iyo kuwo 2 biyo ku kala jiraan, ma fahanteen? So marka intaas waayay waa mahadsantihiin intaas ogaga baxaya aad u mahadsantihiin. Soo dhawaada wixii su'aalaha qabtiin commentiga hoos igu soo qora insha Allah. Channelka subscribe saara haddii videoga aad dhamaysatay like saar. Like-ta ka ilaawin, like muhiim ay tahay videoga dad badan ayaa arkaya markii like badan uu helo. Jazakumullahu khair. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.